waxaan qaadanaynaa conversation aad iyo aad u xiiso badan kaasoo aad ula dhici doontaan wuxuuna u dhacayaa sida tan su'aalo iyo jawaab ay wili laba qof is weydiinayaan waay what will you do maxaad samayn doontaa when you finish markii aad dhamaysid learning English language barashada luqadda Ingiriiska b if I finish haddii aan dhameeyo learning English language barashada luqadda Ingiriiska I shall be either waxaan noqon doonaa laba midkood either waa laba midkood teacher or translator macallin ama turjumaa what will you do maxaad samayn doontaa if you get haddii aad hesho a job shaqo with good salary mushahar wanaagsan leh if I got haddii aan helo a job with good salary shaqo mushahar wanaagsan leh I shall save my money waan kaydsan doonaa lacagtayda because maxaa yeelay I want waxaan doonayaa to buy inaan iibsado a house guri to live si aan ugu noolaado and a car iyo gaari to go si aan ugu aado whenever meel walbo I need aan u baahanahay what will happen maxaa dhici doono if Somalia gets haddii Somalia ay hesho a permanent peace nabad joogto ah permanent waa joogto ah and good government iyo dawlad wanaagsan if Somalia get haddii ay Somalia hesho good government dawlad wanaagsan the Somali people dadka Soomaaliyeed will live waxay ku noolaan doonaan happy farxad and worry free life iyo nolol xor ka ah warwar because maxaa yeelay Somali people dadka Soomaaliyeed have no confidence kalsooni kuma qabaan to their leaders hogaamiyashooda Somali leaders and hogaamiyasha Soomaaliyeed have accustomed waxay caadaysteen to take inay ku qaataan wax walba corruption musuqmaasuq and nepotism iyo waa hagaag wali waa u socdaa cashirku what will happen maxaa dhici doona haddana if Somalia haddii Somalia try ay isku daydo to utilize inay ka faa'iideysato their natural resources khayraadkeeda dabiiciga ah and stop ayna joojiso poaching inay toogsato other countries wadamanka kale if Somalia try to utilize their natural resources haddii Somalia ay isku daydo inay ka faa'iideysato khayraadkeeda dabiiciga ah Somalia will be member of developed nations Somalia waxay xubin ka noqon doontaa member waa xubin waxay xubin ka noqon doontaa wadamanka horumaray developed nations wadamanka horumaray thank you sir mahadsanid mudane you deserve brother walaal adiga mudan you deserve waa mudan adiga ayaa mudan